assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. markii uu jirsaday Diyaa 8 sano waxaa geeriyooday aabihiisa. waxaa gacanta qabtay abtigiis oo kafaalo qaaday noloshiisa iyo waxbarashadiisa. sanad ka bacdi waxaa la guursaday hooyadiis. ninka guursadayna wuxuu shardi ka dhigay in Diyaa uusan la noolaanin. Diyaa wuxuu aaday guriga abtigiis, wuxuuna ka helay nolol aad u wanaagsan. wuxuu baray umuurta diintiisa, wuxuuna xifdisiiyey qur'aanka kariimka. wuxuu ku barbaaray Diyaa barbaarin islaami ah oo saxiix ah, wuxuuna si aad u jeclaaday abtigiis. markii uu bogay jaamacadda sanad kadib wuxuu go'aansaday inuu guursado gabadha abtigiis, midaasoo ku raacday iyadoon ka labalabayn. waxayna ahayd qofka ugu badan oo si dhab ah u yaqaano Diyaa, jaceylka uu qabo aabaheed iyo baarinimada uu u hayo hooyadiis. 2 sano ka bacdi guurkooda, Diyaa xaaskiisa waxba umaysan dhalin. waxay aadeen asaga iyo xaaskiisa isbitaalka si loo ogaado qofka cilladda qabo. Diyaa ayaana u horgalay dhakhtarka, wuxuuna ogaaday natiijada, wuxuuna gartay sababta inay tahay xaaskiisa, asagana ubad qabo. wuu dhoola caddeeyey Diyaa, wuxuuna ku xamdiyey Allah subxaanahu wa tacaala. kadib ayuu ku yidhi dhakhtarka, waan baxayaa si aan ugu yeero xaaskayga, laakiin waxaan kaa rabaa inaa ceebta aniga ii yeesho, iyadana ay tahay qofka caafimaadka qabo. waa uu u tegay Diyaa, wuxuuna ka soo waday xaaskiisa qolka sugitaanka haweenka. waxayna u soo galeen dhakhtarka, kaasoo u sheegay in sababta ay u dhali laayihiin ay tahay cillad haysata ninka, uuna u baahan yahay daweyn fara badan. Diyaa wuxuu muujiyey murugo iyo ku qanacsanaan ridaha alle iyo xukunkiisa. intaas kadib waxaa tagtay 4 sano, labadoodana way isku sabarsanaayeen ilaa ay ka tiri xaaska Diyaa, waxaan kuu dulqaatay muddo dhan 6 sano. hadda waxaan doonayaa furitaan. waxaan rabaa inaan guursado nin kale si aan u arko ilmahayga. sidaa darteeda sanadkan inta ka dhiman keliya ayaan kula joogayaa. waa uu ku waafaqay. yididiilada uu ku qabo Rabbi aad ayay u weyneed. maalmo ayaa ka soo wareegay. waxaa ku dhacay xaaska kili xanuun, waxayna canaan kala dullacaysay ninkeeda. iyada oo ku jirto isbitaalka, ninkeeda ayaa ku yidhi, waxaan doonayaa inaan dibadda aado si aan kugu soo raadiyo kili. maalmo kadib waa uu soo wacay, wuxuuna u sheegay inuu helay nin hindi ah oo ku tabarucay kilidiisa, uuna u imaan doono wakhtiga ugu dhaqsiyaha badan. intaan camaliyadda la samaynin maalin ka hor, waxaa yimid ninkii tabarucaya kilida. ninka wuxuu u sheegay xaaskiisa inuu baxayo si uu u soo dhammaysto shaqo u dhiman. way ka carootay, waxayna ku dhahday, waxaan gelayaa camaliyad aad u halis ah, waad safraysaa, waadna iga tegaysaa. qalliinkii waa lagu guulaystay. isbuuc kadib ninka waa uu soo noqday, waxaana ka muuqday daal fara badan. asaga ayuu ahaa qofka kelidiisa tabarucay, laakiin hindiga wuxuu ka shaqaynayay shirkadda asaga uu ka shaqeeyo. cidna ma ogeyn arrinta, xataa abtigiisa. camaliyadii kadib 9 bilood, xaaska waxay qaaday uur, waxayna dhashay canug. dhammaantoodna waxay galeen jawi farxadeed. ninka waa uu safray si uu u soo qabto shaqo u dhiman, wuxuuna hilmaamay buuggiisa uu ku qoran jiray wax walbo. meesha uu saarnaa ayuuna uga tegey. way akhrisay, waxayna garatay in ninkeedu uu caafimaad qabay, iyadana ay ahayd sababta ay ilmo u dhali waayeen. sidoo kale waxay ogaatay in kilidiisa ku tabarucay. way iska oysay oo hinaad u daran. maalinkaas laga bilaabo, mar kasta ay hor fadhiisato, dhulka ayay fiirinaysay, mana aysan awoodin in argeed ay ku taagto asaga, sababtoo ah waxay xasuusanaysay xumaanta ay u geysatay iyo sida uu ugu sabray uguna dulqaatay. wuu u soo dhowaaday maalin maalmaha ka mid ah, wuuna u dhoola caddeeyey, wuxuuna ku yidhi, waxaan isku dayay inaan dib u soo celiyo dhibic yar oo ka mid ah badda jaceylkii iyo karamkii uu ii sameeyey aabbahaa. fadlan qisadan macaanka badan haddaa ka hesha like saar. haddaa ay nagu cusub tahay, ku soo biir oo sabskaraab dheh. dunida maanta ha moogaanin, gambareelkan furo si ay kuu soo gaaraan qisooyin aad u macaan badan oo cajiib ah. 35 sano jir ah, macallimadna ka ah dugsiyada hoose mid ka mid ah, ayaa waxay isguursadeen wiil dhallinyaro ah isku da'yihiin. 2 sano ayay isqabeen, waxba isumayna dhalin, ilaa markii dambe dhakhtaradda ay ugu bishaaraysay macallimadda inay xaamilo tahay. macallimaddana aad ayay u faraxday. markay dhashay ka bacdi, ninkeeda ayaa guriga keenay khaadimad eeshiyaan ah si ay u saacidayso macallimadda, ayna u hayso canugoodan ay u bixiyeen Muxamed. khaadimaddana waxay ahayd midaan muslim ahayn. macallimadda markay ka baxday umusha kadib, waxay ku laabatay iskoolkeedii, laakiin nasiib darro, muddo 3 bilood kadib waxaa loo sheegay geerida Muxamed oo 4 bil keliya jiray. macallimaddana aad ayay uga murugootay, waana ay ilmaysay.
waxa ay samaysay ayayna garan weyday. jaariyadan ayaa mucalimadda mar walba kula hadli jirtay hadallo jalacsan si ay uga khafiifiso murugada hayso. waxyaabahaasoo ka dhigay mucalimadda inayna ka shakinin jaariyadda inay wax luga ku leedahay geerida wiilkeeda. maalmuhu waa ay socdeen, mucalimaddana waxay dhashay wiil labaad. wiilkana waxaa loo bixiyey Muxamed. mucalimadan oo ka xumaatay kana naxday dhimashada wiilkeedii hore ayaa Rabbi iska tala saaratay subxaanahu wa tacaala, canugeedan labaadna isaga tagto shaqadeedii aaday. laakiin bil ka bacdi waxaa loo sheegay dhimashada Muxamed. mucalimaddii aad ayay uga naxday. dhakhaatiirtuna waxay sheegeen inaysan garanaynin sabab gooniya ilmahan ay u dhinteen, ayna yihiin qadar alle subxaanahu wa tacaala. mucalimaddana mar kale xataa hal ilbiriqsi kama ayna shakinin jaariyadda, maxaa yeelay jaariyadda waxay ahayd qof ka adag shaqada guriga, akhlaaqdeedana ay ahayd mid wanaagsan. bilooyin ka bacdi mucalimaddii waxay qaaday uur, laakiin markan jaariyadda ayaa u timid, waxayna ku tiri waxay mucalimaddii la yaabtay. jaariyadda waxay tiri waxaan doonayaa inaan isaga taga Sacuudiga, in aan soo noqdana ma doonayo, waxaa xanuunsan hooyaday. mucalimadda ayaa ku tiri waxaan keenayaa jaariyad kale, waxaana kaa doonayaa muddo asbuuc ah inaad la joogtid, shaqada gurigana aad bartid. waxay keentay jaariyad cusub, shaqada gurigana isbuuc ayaa lagu barayay. mucalimadda ayaa jaariyaddan baxaysa ku tiri inakan suuqa inu aadne, waxaan doonayaa inaan kuu soo iibiyo hadiyado adiga iyo qaraabadaada. waa israaceen. mucalimaddana waxay u soo iibisay jaariyaddan tagayso hadaayo fara badan, iyada iyo qaraabadeeda waxna kama aysan qaadin. jaariyaddan cusub ayaa aad ula yaabtay. mar jaariyaddan baxaysa isku aadisanaysa alaabteedan faraha badan, jaariyadda cusub ayaa u soo gashay mucalimadda, geesahana iska fiirisay, iriddana xiratay, oo mucalimaddii ku tiri waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego. mucalimadda ayaa tiri ii sheeg. jaariyadda cusub ayaa tiri hadda ka hor wax ma soo dhashay. mucalimadda ayaa tiri haa, 2 cunug ayaan soo dhalay, 2 cunugna waa iga dhinteen. jaariyadda cusub ayaa ku tiri ma garanaysaa sababtaas? ma aqaan bay tiri. jaariyadda cusub ayaa tiri maalin dhowed marka hadiyooyinka faraha badan aad u iibinaysay middan kale, aad ayaan ula yaabay sida wanaagsanaad ula mucaamilayso, waana u dulqaadan waaye, maxaa yeele waxaan ahay aniga muslimad, doonayo inaan kaa qariyo xaqiiqada. aniga waxaa igu tiri jaariyaddan baxayso maalin maalmaha ka mid ah, haddii aad doonaysid aniga camalna aad tahay, ilmahana aad necab tahay, inaad haysan ay ku dhibayso, waxaa suurtagal ah oo aad samayn kartaa wixii aniga aan sameeyey. ilmaha waxaan ku sameeyey mid walba ka mida maskaxdiisa ayaan ku muday cirbad sumaysan, sida ayaan uga takhallusay. adigana sidaa oo kale waa uga takhallusi kartaa haddaad ka mid tahay dadka ilmaha aan jecleen hayntoodana ay dhibayso. mucalimaddii markay intaa maqashay waa ay oysay, waana ay qaylisay, hadallo fara badanna way ku hadashay, xaalad wareer ahna waa ay gashay. dhabannada ayay gacmaha saaratay. markii dambena waxay wax ku dhufatay jaariyaddii baxaysay oo isku diyaarinaysay safarka. waxa ay ku dhufatay jaariyaddiina way sheegan weysay wixii ay geysatay. waxay tiri middan cusub ayaa iga masirsan, waxayna ka masirsan tahay hadiidahan faraha badan aad iibiysay. habeenkii ninkii markuu yimid ayay mucalimaddii u sheegtay wixii maanta dhacay. ninkii ayaana aaday booliiska, wuxuuna waday 2 shaqaalo. booliiska markii loo tagay ee arrintii baareen, waxay dembiga ku soo ogeen mucalimaddii oo waxay wax ku dhufatay jaariyaddan iyadoon waxba haynin oo caddayn ah. dhakhaatiirtuna ay sheegeen ilmahan sababta ay u dhinteen aan la garanaynin. mucalimaddana waxa ay go'aansatay markaa ka bacdi inay isaga tagto shaqadii mucallinnimada, halkaana ay isaga dayso gurigeedana ay ku ekaato, ilmaheedana iyadoo ay barbaariso ayna haysato, ayna ku filnaadaan wixii iyada soo maray. walaal haddii qisadan aad ka heshay ku cajab gelisay, fadlan like saar, nagu soo xirnaa oo subscribe dheh. Afmaal Studio mar walba soo booqo, gambaleelkana furo si aad u heshid wax walba oo cusub. meel walba adduunka ka joogtidna waxaa kuu rajeynayaa amni iyo ammaan. dadka qisooyinka jecel haddaa ka mid tahayna fadlan sii faafi, sheergaree, meel walba aad ku sheergareyn kartidna ku sheergaree. mahadsanid. wiil dhallinyaro ah ayaa dhaqan ka dhigtay deeqsinimada iyo u samaynta khayrka qofka uu garanayo iyo qofka uusan garanaynin. wuxuuna ah mid ay jecel yihiin ehelkiisa iyo jiiraankiisa, waxayna ku jeclaayeen laasimidda cibaadada iyo ilaalinta xuduudda alle. wuxuu guursaday wiilkan gabar qurux badan kana soo jeeda qoys weyn. hal bil kadib guurkooda wuxuu ogaaday in xaaskiisa aysan jeclayn ehelkiisa, ayna soo dhowaynin marka ay soo booqdaan, cagsigeedana ay ku qaabilayso ehelkeeda farxad weyn una keenayso shay kasta oo macaan oo wanaagsan. arrinta ayuu ku baraarujiyey xaaskiisa, laakiin waxay ku tiri sida aan ehelkayga u soo dhoweeyo ayaan u soo dhoweeyaa ehelkaaga.
si uusan u xumaanin xiriirkooda una gaarin kala tag. Ninka wuu iska aamusay qalbiga ayuuna uga duceeyey in Alle uu hanuuniyo. Salaad kasta kadib wuu u ducayn jiray. 6 bilood ka bacdi guurkooda, ninka wuxuu ku dhahay xaaskiisa, waxaan u hiloobay waalidkayga iyo walaalahay. Waxaan kaa rabaa berri inaad u samayso qado wanaagsan. Hadda ayaan waacayaa waana u sheegayaa. Waxay ku tiri iyadoo ka santaagayso hadalkiisa, u yeer sidaad doonayso. Subaxdii xigtay wuxuu aaday shaqada, wuxuuna ka imaaday duhurka ka hor. Wuxuuna ku yidhi ma diyaarisan qadadii? Waalidkayga waxay imaanayaan saacad kadib. Waxay si dhib la'aan ah u dhahday maya, waxba ma aanan karinin, ehelkaagana ma ahan quraabo, waxayna cunayaan cuntada aan karsannay annaga. Wuxuu ku yidhi maxaa shalay iigu sheegi weysay inaadan waxba karinaynin? Hadda way imaan rabaan, maxaan sameeyaa? Waxay ku dhahday la hadal, u cudur daara, una sheeg inaysan imaanin, waa ehelkaaga, wayna kaa aqbalayaan. Ninka guriga ayuu ka baxay isagoo murugaysan. Daqiiqada ka bacdi guriga ayaa la soo gargaraacay. Way istaagtay wayna ka furtay. Waxaa u soo galay waalidkeeda iyo walaalaheed. Waxay ku noqotay fajac iyo amakaag. Aabbaheed ayaa ku yidhi aaway ninkaaga? Waxay ku tiri wuu baxay daqiiqada ka hor. Wuxuu yidhi aabbaheed asagoo caraysan, siduu u baxaya? Asagaa shalay nugu yidhi berri imaada, aniga ayaad ii casuumantihiin. Khabarka ayay ka naxday, waxayna isku dhufatay gacmaheeda. Waxay si hoose isku dhahday cuntada taallo uma qalmaan ehelkayga in lagu casuumo, waxayna u qalantaa ehelkiisa. Waxay wacday ninkeeda, waxayna ku dhahday maxaa iigu sheegi weysay inaa aniga ehelkayga marti qaaday? Wuu dhoola caddeeyey, wuxuuna ku dhahay wax farqi ah uma dhexeeyo ehelkayga iyo ehelkaaga. Waxay ku tiri codsi, guriga cunto ma taallo ee cunto fiican noo soo gad. Wuxuu ku yidhi waa ehelkaaga, qurabana ma ahan ee sii cuntada taallo guriga. Sidii aad u siin rabtay awal ehelkayga u sii ehelkaaga. Intaa kadib way iska aamustay. 5 daqiiqo kadib ayuu guriga imaaday isaga oo wada cunto aad u wanaagsan. Inta aanan la gurin ayuu waalidkeeda u sheegay wax walba oo dhacay. Dhammaantoodna way ka caroodeen. Aabbaheed ayaa ku yidhi gabadhiisa, sooma aadan maqlin in Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu yidhi qofkii rumaysan Allah iyo maalinka aakhiro ha karaameeyo martigiisa? Kadib ayuu ka idin qaatay ninka gabadha qabay, kuna yidhi aniga ayaa wadaayo oo soo idbinayo. Ninka ayaa yidhi waan awooday inaan ku ciqaabo ciqaab daran, laakiin waxaan jeclaa inay iyada isbeddesho nafsad ahaanteeda. Waxay taraysaa salaadeeda haddaysan si wanaagsan ula dhaqmaynin dadka. Wallaahi adeer, waxaan uga baqayaa munaafaqnimo. Mar walba waxay ii ammaanaysaa ehelkayga, laakiin ammaanteeda waxba kama arko marka ay nala joogaan. Gabadha way u cudur daaratay ninkeeda, waxayna ugu dhaaratay inay isbeddelayso. Wayna fahamtay cashirkii, waxayna ogaatay khaladkii ay ku jirtay. Ninkeedana wuu cafiyey marka uu gartay runta sheekadeeda iyo niyaddeeda. Fadlan haddaad dhammaysatay qisada aan like saar, ugu soo biir oo subscribe leh. Dunida maanta aad ayaad u mahadsan tahay.